maamulka dawladda hoose degmada Laascaanood ee hormuud ka yihiin maayarka degmada Laascaanood iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood ayaa maanta deeq lacag ay ugu tala galeen in lagu dhameystiro wadada dalladka ee dhanka galbeed magaalada Laascaanood ka xigta dhismaheeda ku wareejiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Saal Maxamed Jaamac waxaana halkaasi ka hadlay duqa degmada Laascaanood oo sheegay inay deeqdani tahay mid ay dawladda hoose ugu tala gashay in lagu dhiso wadada dalladka ee galbeedka magaalada Laascaanood ay dhismaheeda si wada jir u wadaan wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale dawladda hoose degmada Laascaanood waxaan halkan ku wareejinaynaa lacagtii dawladda hoose aan ugu tala galay ka qayb qaadashada wadada dalladka inaan wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Saal Maxamed Jaamac aanu ku wareejino wasiirka ruuxaantiya nin inuu wadooyinka gobolka Sool u soo xarka xidhay inuu wax ka qabto wadadii Maraaguna hadda waa aragteen oo soo daawan kartaan wax yar shaqadii waa gabagabo taana dawladda hoose way ka qayb qaadatay waxa waa horumarku iska soo daba dhacaya maalinta ka dambaysa inagana waxa looga baahan yahay in horumarka aynu gacan dawladeed iyo gacan maamul aynu sugin dawladuhu ay isku tashadaan xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa isna dhankiisa sheegay inay deeqdani tahay cashuurta ay shacabka degmada Laascaanood ka soo xareeyeen isla markaasina wax qabad muuqda ay ugu qabanayaan halkan maanta waxaan ku wareejinaynaa wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka lacagtii contribution-ka dawladda hoose ay ugu tala gashay samaynta wadada ama jidka laamiga ah ee didinka dayactirkiisii dhinaca go'ay haadkii go'ay lagu sameyn lahaa dalladka ayaan ku wareejinaynaa wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka soo dhawo wasiir lacagtan laga qabo waa contribution-kii ay ugu tala gashay dawladda hoose ku bixinaysay qaranka ahaa samaynta wadadan waana kaaga mahad celinaynaa fursadda qaaliga aadna siisay iyo xilka aad iska saartay inaad maanta wadooyinka u samayso magaalada Laascaanood haddaan iskaashan horumar lama gaadho maayarka degmada iyo xogayaha iyo dhammaan dawladda hoose waxaan uga mahad celinayaa runtii contribution-ka ay bixiyeen iyo xalay dawladda hoose xalay waxa suud baa la yiraahdaa moogta waxa suudo ubadka iyo caruurta iyo wixii waxa dhan iyada ka naxda aad baan uga mahad celinayaa anagana waan astureen ilaahay iyagana ha asturo gabagabadiina wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Saal Maxamed Jaamac ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ka mahadnaqay deeqdan ay dawladda hoose degmada Laascaanood maanta ku wareejisay wasaaradda qolada dawladda hoose iyo gobolka way silqaameen waxay dheen contribution baanu ku dirsanayna yaraan iyo badnaan garashadaas waxba la siisan ay garteen teamka maanta shaqeynaya inay wax ku daraan oo sidaanu ku nimi alla og yahay dhaqaalaha dawladda alla og yahay laakiin ana waxa u jabeynayaan hawshii hore ka wada u wadeeno aanu qabanayno maayarka iyo xogayaha iyo gudoomiyaha gobolku dhammaan waa ku maasayin contribution-ka ee xalaqaftiin baa qashaa oo ma sha Allah Maxamed Guray Isaab TV Laascaanood